libaaxi igahaya loolkii darigiyo ilaabkii haamaha labdhaansado danrarkayo baydi lamadeena dhiinka udubkii dhex taagnaa waa kal kale iyo barnaamijkeenii hiddaha iyo dhaqanka dhegaystayaal dhirta iyo deegaanta Soomaalidu aad bay u ilaalin jirtay oo dabargoyn iyo kufalaad aan fikir ku fadhiin geed in lagu gooyaa waxay ahayd arrin adag. Dhirta xitaa waxay ugu jirtay kaalinta birimageydada. Birimageydadu waa cid aan birta loo qoodhin dad duunyo deegaan intabana waa ay noqotaa. Geedka damalka ah ee hooska wanaagsan ee nafruhu kolka ay cadceedu dhaharato ay ka hoos galaan aalaa birta lagulama haliili jirin. Geedka guud ahaan ku yar deegaanka isaguna waxa uu lahaa tixgelin gooni ah oo geedka laguma degdegi jirin. Sababtu tahay geedku Soomaali dhexdeeda kaalin weyn ayuu ku lahaa oo geedka hoos fadhigiisa ayaa aayaha bulshada marar badan lagu soo fardaamiyey oo mar colaad lagu guddoomiyey kol kalena nabad lagu unkay. Mar kale qoys lagu dhisaa kol kalena waa lagu burburiyaa. Geedku waxa uu ahaa goobta uu suldaanku fadhiisto iyo gandaha kale ee tala wadaagga ay yihiin. Halkaasoo xaajo kasta oo deegaanta ku soo biirtaba lagu feemin jiray, falanqayn jiray. Geedku sidaa awgeed hebel waa geed joog waxaa looga jeedaa waa waayo arag, waa tala qabeen, maadaama uu ahaa geedku dugsigii xilligaa jiray ee xogta nolosha lagu baranayay. Qofkuna geedku noloshiisa wax badan ayuu ugu filan yahay marka laga yimaado inuu ahaa udub dhaxaadka iyo halka aayaha bulshada lagu rogrogo. Guud ahaan dhirtu nolosheena waxay ku leedahay kaalin weyn oo si kasta oo aad u eegtaba wax weyn ugu fadhiya. Haddii Rabbi qadaro waxaynu qaadan doonaa tix farshaxana oo uu tiriyay Allaha u naxariistay gabyaagii weynaa ee la odhan jiray Cali Cilmi Afire oo ahaa maasayahan ahaada aad iyo hana qaaday horraantii qarnigii 20aad. Waxa uu ahaa gabyaa sugaan toolmoon oo sugaantiisu dhammaan laamaha nolosha si weyn ay uga hadasho. Hadday noqoto dabacsanaanta iyo dareenka kalgacal, hadday noqoto gayiilanimada iyo inuu qofku noqdo wadani dhulkiisa, ciidiisa iyo calankiisaba dhowrta, iyo haddii ay noqoto guud ahaan nolosha hagaajinteeda, horumaynteeda iyo in la helo nolol tanaadaysa. Gabyaagu waxa uu maasada inoogu sharaxayaa kaalmaha ay dhirtu nolosheena kaga jirto. Qofku waa uu socdaalaa oo safar ayuu reerka uga ambabaxaa ama wuu sahan tagaa oo deegaanta la degan yahay tuka nolol roon ayuu raadiyaa. Kol kale muraado uu leeyahay wuu ambabaxaa. Socdaalka qofku intuu ku dhex jiro falaaraha cadceedda waxa uu ka hoos galaa dhirta damalka ee waaweyn. Waxa uu odhanayaa adigoo dhalandhoolay oo dharaartu ay kululaatay oo dhafoorkaaga iyo jiirka dhididku uu qulqulayo dhalcadaad ka gashaayo. Dhirtu waa nolosheena, dhalcaduna waa cadceedda. Mar kale dhirtu waa dugsi aad kaga gabato, ka hoos gasho gowraha iyo dhaxanta badan oo meesha yooxyooxa ee aan lahayn geed aad kaga dhuumato dhaxanta iyo dhulka dhirta leh way kala duwan yihiin. Midna diirimaad baad ka helaysaa, ta kalena dhaxanta
qabow ayaa ku dhabanaaninaysaa oo dhib iyo rafaad baad ku dhex dareemaysaa. wuxuu odhanayaa qabow dhuuxa laftaada iyo dhogortaada dilaayiyo dhaxantii kaa celisaayoo dhambalaad huwanaysiiyo dhar bay kuu noqotaayo dhirtu waa nolosheenna. mar kale ayay dhirtu waxa ay tahay ta aynu ku noolahay oo aynu ku noolahay si toos ah inakoo cunayna midhaha aynu dhirta ka helo, amaba aynu si dadban ugu noolahayoo wax dooga iyo laanta cuna ayaynu inakuna sii dheebsanaa cadkiisa iyo caanihiisaba. sidaa awgeed dhirta ayaynu wax ka cunnaa oo qaraab baynu kala soo baxnaa. midhacaanyada, dhafaruurta, hohobka, gomashaaga, gacayrada, xangeeyada, sabkaxda, likaha, doombirta, cilalka iyo kuwa la halmaala ayaynu qaraab ahaan dhirta uga gurannaa. mar kale ayaynu dhirtii ku noqonnaa oo aynu ka helnaa khudrad aynu cunno oo jaadad badan leh. mar kale ayay tahay midho la karsado oo qoyska noloshiisu ay ku tiirsan tahay, taasoo garow, geley iyo kuwa la midka ah leh. sidaa awgeed dhan kastood ka eegto dhirtii nolosheenni baa ku tiirsan oo iyada ayaynu ku baahi baxnaa oo nolosheenna wax weyn u ah kana ah. marna dhuuni la qaatiyo dhugacaad u bislaadiyo mudhay kuu dhalayaanoo dhibtu kaaga hadhaayo dhirtu waa nolosheenna. guga la filayo ayaa tabiya, markaasaa dayrta ku xigta ee la isleeyahay reerku ha ku badbaadaanaa baaqataa. kolkaasaa dad iyo duunyaba si dhaba waxaa loo wada dareemaa dhibaatada abaartu ay leedahay. biyo yaraan iyo cawska oo la waayo kolka ay isugu darsamaan ayaa dhab dad iyo duunyaba u wada ogaadaan xaaladda lagu jiraata ay tahay. dhirta qaarkood ayaa dabeeto xoolaha loo dhacariyaa oo loo jarjaraa xilliga biyo waaga si ay ugu doogaan oo ay wax ugu noqoto. markaasaa wuxuu odhanayaa dhulkuu roobku ka raagayoo abaar laysu dhammeeyey, dheemaalkeedii iyo xaygiyo dhimbiishii ku qabowdiyo dhaayinkay bixiyaanbaa reerku kuu dhacartaayoo dhirtu waa nolosheenna. mar kale ayaa oodi ay tahay amba geedku uu yahay oo reerku isku xayndaabo oo u noqdo dayr ay kaga badbaadaan dawriga, libaax iyo dhurwaaga soo dhaguugaya ee dhib iyo dhagar la maagan xoolaha iyo dadkaba. sidaa awgeed marka reerka dayrku u adag yahay ee aanu wax dagagara lahayn, habeenkaa dad iyo duunyaba nabadgelyo iyo kalsooni bay ku seexdaan. haddiise oodu ay dabacsan tahay, xoolahana waa loo walwalaa, dadka laftigoodana cabsidu kama ag fogaato. laakiin marka reerka dhacanta iyo ooda loo giijiyo, cabsidu way yaraataa. dhafka soolka iyo hawdka hadday dheer tahay oodu, dhooloweyne libaaxiyo dhurwaagii wax cunayiyo dhowrta soo mari mayso, waa dhis aan laga maarminoo dhirtu waa nolosheenna. oodu hadday reerka u adag tahay, reerkaasi waxa ay ku jiraan nabadgelyo. aqalka soomaaliga ee aynu lahayn nolosheenna wax weyn iyo kaalin adag buu kaga jiraa. waxaanu ka kooban yahay intiisa badan waa wax dhirta aynu kala soo baxno noocay ahaataba. dhirta haddaba inteeda qolfoofka ah ee dhigta, udubka, loolka iyo wixii la midkiiba oo wax ka yimi geed. sidoo kale xabagta laga gurta dhirta iyaduna waa wax ka yimi ama ka ahaaday geed. usha diirqabka ah ee geela lagu raacaana oo waxaynu ka goosanno geed. sidaa awgeed baa wuxuu odhanayaa marna dhuub la xideeyiyo dhirtii la isku maraayiyo udub dhiig casla moodiyo dhingad aad u qurxooniyo xaba kuu dhadhamaysiyo wuxuunbaad ka dhurtaayoo madhax weeye dhitaysanoo dhirtu waa nolosheenna.
dhegaystayaal intaasaynu ku saameynaynaa barnaamijkeenii hiddaha iyo dhaqanka. inta aynu kalkan oo kale ku kulmaynana waxaanu kaga tegaynaa nabaday iyo nooli kulan. iyo kaleexi igahayo loolkii darigiyo ilaabkii haamaha labadhaansado danrarka iyo baydi lamadeena diinka oo dubkii dhex taagnaa danrarka iyo